maxaa dhabanada u xiiray maxaa surwaal dabada ka dhacaya u galiyay maxaa jilbaha iyo cagaha u jeexjeexay maxay dharka isugu dhajiyeen maxaad u sidii awr qooqay ayuu sidaa u qomboway markaas uu isqondhorinaya saasuu isu qondhorinaya dharkiisana waad la yaabaysaayo waxaad leedahay kan araday yaa u iibiyo talow uu aradsan yahay in wax loo iibiyo istaa'ilaaye intaasoo jeer bay sanka iyo dhagaha qoorta iyo cagaha iyo gacmaha iyo boqol waxbay sidataayo midun bay filim ku aragtay ama riwaayad ama wax jiraya ama hadduu doono qoomuluudba ah dharkay gashay waa dhar lagu faygaray dushiisiiyo hoostiisii hareerihiis waa xarfo gaagaabana u taagan dumarka isguursada iyo ragga isguursada iyo qoomuluudka iyo waxaase xarfaha gaagaaban u taagan yihin midun buu arkay gashanoo noocaasa calaamadoodii buu iska sitaa calaamadii jeegaanta la odhan jiray ee ay lahaayeen dadkaa xumi dhallinyarada casrigan jooga in badan oo ka mid abaa waxay ku faanaan waxa loo yaqaano tafaahada iyo safaahada qofkii inuu taafih yahay ama safiih yahay taafiha iyo safiihu waa qof aan waxba ahaynoo wax iska dhiga marka la eego aragtida muuqaalka uu leeyahy iyo dhaqankiisa iyo fikirkiisa dad taafihiinoo sufaha ah oo liita bay wax moodeen oo iclaamku uu buunbuuniyo ummadaha shisheeye ka mid a dhallinyaradeenni meeday maxaa dhabanada u xiiray maxaa surwaal dabada ka dhacaya u geliyay maxaa jilbaha iyo cagaha u jeexjeexay maxay dharka isugu dhajiyeen maxaad sidii awr qooqay ayuu sidaa u qomboway markaasuu isqondhorinaya saasuu isu qondhorinaya dharkiisana waad la yaabaysaayo waxaad leedahay kan araday yaa u iibiyo talow uu aradsan yahay in wax loo iibiyo istaa'ilaaye socodkiisana inuu naafo yahay baad moodaa marka inantiina waa saas oo kale inankiina waa sidaa intaasoo jeer bay sanka iyo dhagaha qoorta iyo cagaha iyo gacmaha iyo boqol waxbay sidataayo midun bay filim ku aragtay ama riwaayad ama wax jiraya ama hadduu doono qoomuluudba ah ayay ku aragtay ama waxbuu ku arkay dharkay gashay waa dhar lagu faygaray dushiisiiyo hoostiisii hareerihiis waa xarfo gaagaabana u taagan dumarka isguursada iyo ragga isguursada iyo qoomuluudka iyo waxaase xarfaha gaagaaban u taagan yihin midun buu arkay gashanoo noocaasa calaamadoodii buu iska sitaa calaamadii jeegaanta la odhan jiray ee ay lahaayeen dadkaa xumi dadka loo yaqaano taafihiinta taafi waxa weeyaan ummadda liidata ee ummadda wax looga dhigo aclaam baa looga dhigaa wax waaweyn laakiin waa dad hooseeya marka aragtidooda iyo afkaartooda iyo la eego waa ummadaha maanta laga yaabo dadka qaarkood inay ku dayanayaan qaar baa bacd almaraad noqda xayawaan waaba cajiib casrigan waxaa jira wax la yidhaahdo alkilaab albashariya ayda bani aadamka ah qofkiibaa siminaar buu gelayaa wuxuu odhan anu beryahan soo socda waxaan xiisaynayaa in ay noqdo xadhig qoorta la ii suro afarta addin aan ku socdo carabka aan soo yaro ridoon dhareeriyo war tababarkaasaan doonaya inaan qaato qofna i kaxaystu i jiito tababarkaasaa lacag laga qaadaya markaasaa la siinayaa tababarkaasoo muddu ayga ahaanaya marka dambuu kor isu soo taagaya haddanoo dadkiibuu ku soo biiraya bal dadka noocaasa dhallinyarada ku dayanaysa waa nasiib darro wey marka safaahada iyo tafaahada madharka iyo macnaha iyo meesha ay joogaanba in loogu tago waxaasoo dhammina waxa weeye wax lagu faani kara maaha waa wax laga xaragoodo oo laga faano oo laga fogaado waxaa sidoo kale iyaguna arrintan runtii ictisaaska madmuumka ah ama dhaadashada la diiday ah ta madaxda ay ku faanaan inay ku dayanayaan siyaasiyiinta gaalada siday u labistaan afkaartooda say u cabiraan falsafaday leeyihiin inay wax badan yidhaahdaan kuwaasaanu kaga dayanaynaa dimuqraadiyadooda iyo xadaaradda say wax u maamulaan iyo siday diinta iyo dowladnimada u kala saareen iyo inay iyaguna aragtida noocaasa siyaasiyiintu ka qaataan dadkaa taafihiinta ah ee liita iyaduna waa nasiib darro ay halkaa cisi ka raadiyaan
markaynu taa ka soo gudubno waxaa u baahan markaa fasiraad maa huwa macna الاctizaazi bihada الdiin الxaniif muxuu yahay markaad ku faanay sidee loogu faanayaa diinta waxaa loogu faanayaa inaad diinta adigu ku dhaqanto ilan diini waa dhaqan dadkana ugu yeedho ayaddu macnahaasayna baraysa waman axsanu qowla miman dacaa ilى اllahi wacamila صaalixا waqaala inanii min almuslimiin yaa ka hadal wanaagsan oo ka dhaadasho wanaagsan oo ka faan wanaagsan qofka ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhaya daaciga ah isagiina ku dhaadanaya islaamkiisa ku kalsoon waqaala inanii min almuslimiin maaha ma laha anigu reer hebel baanay jinsiyad hebel baanahay miyadaanay arkaynin waxaa ma laha laakiin waqaala inanii min almuslimiin anugu muslimiintan ka mid ahay buu leeyahay hadday qaar kale wax ku faanayaan marka inaad islaamkaaga kula dhaqanto dadkana ugu yeedho waa ixtisaaska ku dhaadashada la doonaya wey ku dhaqan iyo ugu yeedhin macna alictizaaz waxaa ka mida inaynu garanno wixii ugu sharaf badnaa ee ugu qiimaha badnaa inuu ilaahay inoogu deeqay oo ah kitaabkiisa kariimka ah laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun ilaahay baa wuxuu leeyahy intuu dhaartay dhabnimo waxaanu idinku soo dejinnay kitaab sharaftiinni iyo cisigiinnu ku jiro kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun meesha meel caqli jirin maxaa cid kale u eegaysaana cid kale waxooda ugu faanaysaan iyo badeecadooda liitee rakhiiska ah kitaab sharaftiinniba ku jirta iyo cisigiinni baana soo dejiyay baa laha wuli marka waa inu qofku taa dareemaa macna alictizaaz waxa weeye inaynu garanno haddaad islaamka ku abtirsato deeqdii u weynaydba inuu ilahay adiga ku siiyeyba dadka bilaadiintiina hadday dal hayaan qurux badan oo ay duunyo hayaan oo ay awood hayaan